نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكان هاو قد هوزي في مرنا إلهي طاعات دي سيد دقرقي سمدينين ملك نبي رسوله والله اختباري تضبطي هبلوضوا لها مركلي لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتay iska sabray todobadii wiil oo lahaana markaliya israaceen oo iska sabray baarihi iyo tijaaradii xooluhu lahaay oo dhan markaliya laga qaaday oo iska sabray markaas jirkiisi waliba xanuun lagu riday oo iska sabray xanuun nuucaya gaadhay waxa la jirkii intuu dhamaaday harigaya lafaha isku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anagu aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadka u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeeni ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkaysan kara laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka waru dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa leeyahay ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idnada wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ayyub alayhi salam rabbigiibu u dhawaaqay oo rabbigiibu la munaajoodo u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yiri ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahay ilaahu dhibka iga qaad buu yiri ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa leeyahay halkii uu joogay baa lagu yiri lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay xanuunsana awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee يعني أذكو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها صوصارين لقت هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدوية نركينا أردن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آذا كان روح ذا يكون حجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجرة مركا نظام كإلهي إيشي نمقبنا يسو قدرة إلهي بعالم كان معمولة سلوكتي بالنبي أيوب سعود قاجيي للكو كعليي لبدا لغو دخلو دي بيا كصوبحين بالله لبا إلو دو بيا إلنا وحال يري كم يرو إلنا وحال يقول يا عم وما يلي جركيسي وعادي وعبي على الشيء قدها وحي حنون كجرو دبا بناك وكصوبحين وصوك عبي مركلية xaaskiisii magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa marka waxay tiri oday ayuub la oran jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladan ugu maqnaayo aan u shaqo tagay miya dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhalinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay
markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ana ayuub ayuub kii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayuu ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mida mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرتو يدي إلى هالكاغر سمحادو ملين قرآن هذا ليس هذا الكيجي لما غشيه war boqor nuucay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay في كل الزمان فرضه هو شيء غالية فرضه سي وكجل جري أيا صدا الله صهور مريء بالليل ساعد إلهي ذكرك وسمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد حاجر إلهي للمنا جوده وقال لك وريه قال لك الدنبوي أيام وين وقفك مؤمن كقرتا ساعد حاجر إلهي ونوجد يلا دون يو إن الأدوية أنتو كائمنو مساجد soo galnoon ilaahay u dhawaano ilaahay la munaajoon saacadii dhikriga uu sameyn jiray rabbigi la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyay فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكلا القرآن كوكو شيء فردهي بقى الهرمري وحوري فردها هذه هرمرسان وعي إيقام مشغوليا إلهي حسكي بيقام مشغوليا بيولي ذكرقي أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليا كل قود يسوع علي يقول يسوع علي كركا كوضا جرى يعني وحلي وحي طاعد إلهي كم مشغوليا النبي يدو قورتك قوينيا inaga salaadan tukanaynay imise jeer baa dukaanadeenu naga mashquuliyeen dukaanadeena weli ma bixinay ninkeeba u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alle markaan salaada galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyay buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacadiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leegu haystay حق إلهينا وكجتي حق بني آدم كنا وكجتو وكو إلى ليه بالليل حق إلهينا ما ضيعن حق بني آدم كأيكولها هاينا ما ضيعن
waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka qur-aanka ilaahay ku sheegay istiqaama marka haddaad dabaqad kastoo muslimiinta ka mida aad ku lug leedahay saa diinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaanaa tahayna nebi ayuubbaa u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay